shir maalin socday ayaa lagu qabtay magaalada Gaaris oo madaxdii Gaaris iyo odayaasheedii dhalinyarteedii hooyooyinka gabdhaha mutacallinka dhammaanba ay ka soo qayb galeen shirkaas oo focuskiisa mas'uuliyadiisa ay ahayd in looga hadlo arrimaha khuseeya dhalinyarteena arrimaha khuseeya dhalinyartana taqriiban 4 qodob baa laga fiiri qodob wuxuu ahaa qodobka xagga shaqagelinta mise shaqaale la'aanta iyo habkii dhalinyarta loogu abuuri lahaa ma aragtay shaqa mise loo shaqagelin lahaa arrintaasna waxyaalaha ka soo baxay waxaa ka mid ah in dhalinyarta lagu dhiirigeliyo mise lagu booriyo in ay tacliintooda ay ku dadaalaan laakiin si khaas ah tacliinta farsamada mise TVET-ka la yiraaha in loo jeesto ayaa ma aragtay hadda lagu ya xawayaan ya go'aanka way marka dhalinyarta mas'uuliyiinta dhanba inay ku booriyaan in ay tacliinta la yiraaha TVET-ka in dhalinyarteena lagu booriyo dhammaanba waxaa kaloo ka soo baxday in laga codsada dadka ay khusayso dhammaanba in lagu support gareeyo mise la kaalmeeyo mise ma aragtay kharajka tacliinta laga bixiyo dhalinyarta akhrisata iskuulaha mise goobaha lagu barta farsamada mise TVET-ka la yiraaha waxaa kaloo iidana laga hadlay muhiimadda ay leedahay in dhalinyarta xagga akhlaaqda lagu hanuuniyo mise lagu toosiyo taasna waxaa listusay arrinta culamaa u diinka iyo waalidka iyo odayaasha dhammaanba inay arrinta iska kaashadaan sidii loo xaqiijin lahaa dhalinyarteena in asaas wanaagsan oo xagga akhlaaqda loo siin lahaa sifa nolol wanaagsan oo diin iyo ixtiraam iyo qadarin ku dhisan ay maaragtay ugu barbaaraan waajibkoodana haddana ay u gutaan mustaqbalkana ay u gutaan arrinta kale oo muhiimka oo laga hadlay waxa weeyaan arrinta mukhadaraadka caam ahaan iyo haddana qaadka iyo moqokaaka si khaas ahaan arrintaas laba qaybood baa loo qaybiyay qayb waxaa la yiri wixii ku saabsan mukhadaraadka la mamnuucay oo la garanayo in hay'adaha u xil saaran xagga fulinta arrinta inay ma aragtay habkii ay uga hortagi lahaayeen ay ku dadaalaan yaa codsigaas iyo misbaaqaas ayaa la soo jeeday wixii kale oo weli la mamnuucin sida qaadka oo qoto asagana in dhaqaaqiisa iyo ka ganacsigiisa iyo socodkiisa iyo ma aragtay dhammaanba in cariiri la geliyo la adkeeyo sifa ma aragtay looga badbaadiyo mujtamaca dhibka uu u keenayo bal waxa weeyaan inay haddana laga codsaday hay'adaha ay khusayso sida countiga oo qoto inay ka shaqeyso sidii ay guud ahaanba ay uga xarimi lahayd countigeenan Gaaris waxaa kaloo iidana meesha baaqa laga diray in mujtamacaadka si gooni ahaan arrintan u danaynayo magaalooyinkooda tuulooyinkooda yar iyo xaafadahooda inay si gooni ahaan arrintan uga tashan karaan sifa arrinta ay kulliyan uga mamnuucaan meelaha deegaankooda arrinta kale oo iidana laga hadlay waxa weeyaan arrinta nabadgelyada oo waayahanba ma aragtay dhalinta faraha lagu fiiqay dhalin ma aragtay koox oo qaar midiyo wataan qaar isla socdaan ku telefoon booba ku qof ma aragtay midi waxa ku dhufta qof ma aragtay waxyaalaha noocaas oo qoto ayaa soo badatay arrintaasna waxa weeyaan dhalinyartii baaq baa loo diray inay arrinta ka tanaasulaan sida ugu dhaqsi badan waxaa la yiri dadkii lagu qabto waxyaalaha noocaas oo qoto in sharciga habkiisu u haboon yahay in la mariyo laakiin isla markaa dadweynaha waxaa laga codsaday in xaafadaha ay degan yihiin in haddii ay dhir ka baxday ay jirto oo meelaha maaragtay cariiri iyo mugdi ka dhigayso in maaragtay wadooyinka in la iska kaashado sidii waxyaalaha ay ku dhuumadaan dadka niyadda xun arrimaha meesha looga sifeyn lahaa weli dadkeed awoodda leh
haddii ay waxyaalahan la yidhaha CCTV-ga ay ku xidhi karaan xaafadooda inay ku xidhaan taasoo u kaalmaynaysa in la ogaado dadka maaragtay laga yaaba inay niyo xun meelaha xaafadaha ay ku imaan karaan. waxaa kaloo laga codsaday county government-ka iidana inay ku dadaasho habkii ay wadooyinka ugu ballaarin lahayd nalka mise waxa la yidhaahaa street light-ka. waxaa kaloo ka soo baxday in mas'alada maslaxada si xun loogu isticmaala marka imaado waxyaalaha qaarkood khaasatan dadka waxa ka xanuujiya waxaa weeyaan dhalinyarta maaragtay gabdhaheena cafiifaadka oo wanaagsan dhibka u keenaya waxay xoog iyo ilmo la faro xumeeya wixii ku saabsan inaan maslaxa la gelinin oo loo daayo nidaamka kale oo dawladda in meesha lagu wado. marka waxaa kaloo iidana lagu heshii mise meesha ka soo baxay inay muhiim tahay dadweynaha iyo laamanka dawladda inay ma aragtay si wada jir ah oo kalsooni leh ay ku shaqeeyaan sifa ay isu dhaafsadaan wixii macluumaad ah oo ku saabsan oo maaragtay ku saabsan nabadgelyada. labada qodob oo u dambaysa waxay ahayd in go'aamahan meeshan ka soo baxay in sanawiyan min sanad kastaaba dib loo baaro wixii ka qabsoomay iyo wixii qabyo ka ah. midda kale oo la codsaday waxaa weeye in shirar noocan oo koote iyadoo loo mahadceli mudanaheena magaalada Gaaris Majadeeqow iyo guddigii la shaqeynayay oo dad maaragtay sharaf leh oo degmadan u dhashay ka wada kooban inay iska kaashadaan mise sidii loo sii wadi lahaa in shirar noocan oo joogta oo sanad kastaaba ah oo looga hadlayo waxyaalaha mujtamaceena khuseeyo sidii ma aragtay iidana loo qaban lahaa sanad kasta. qodob kale oo iidana aan soo xasuusto waxaa weeyaan in la qabto shir guud oo xagga dhaqaala maxaa la yiraahdaa dhaqaalgelin ma la dhahaa maalgelin in lagu qabto magaalada Gaaris taasoo loola jeedo sidii lagu soo jiidan lahaa dadka dhaqaalaha haysto oo mashaariic ka fulin kara wadankeena taas oon rajaynayno wadankana inay dhaqaala u abuuri dhalinyarta inay shaqo ay u abuuraysa laga rajo qaba insha Allah ta'ala. marka khayr Allah insiyo intaas weeyaan qodobihii si guud ahaan waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.